asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Waxaa jirta arrin khatar ah oo ay muslimiintu inta badan sameeyaan, arrintaasoo ah in la seexdo iyadoo aanan cawrada la asturanaynin ama in dhar la'aan qaawanaan lagu seexdo. balse maalinna ma isweydiisay muxuu shaydaanku kugu samaynayaa markii aad seexato adigoo qaawan? Balse ka hor inta aanan bilaabin, haddii aad inagu cusub tahay fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirageliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Waxay diinteena sharafta leh ee Islaamka nagu boorinaysaa in aan cawradeena asturanno xaalad walba oo la joogo, xitaa haddii uu jirin qof bani aadam ah oo ina arkaya, markii laga reebo xaaladaha ay lagama maarmaanka tahay in cawrada la faydo. Markii aan keligeena nahayna waxaa loo baahan yahay in aan cawradeena asturanno innagoo ka xishoonayna Alle subxaanahu wa tacaala iyo malaa'igtiisa. Fallaahu subxaanahu wa tacaala axaqu an yustaxyaa minh. Alle ayaa ugu xaqnimo badan in laga xishoodo subxaanahu wa tacaala. Can Mucaawiyata bni Xaydata radiallahu canhu qaal, waxaa Mucaawiye Allaha ka raali noqdee laga wariyey in uu yidhi: qultu yaa rasuula allah, cawraatunaa maa na'tii miha wamaa nadar. Waxaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku idhi, rasuulkii ilaahayow, cawrooyinkeena maxaa inooga bannaan in aan soo muujinno, maxaanse ka tagnaa oo aanan inoo bannaanayn? qaal ixfad cawratak ilaa min zawjatik aw maa malakat yamiinuk. Wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wassalaam, cawradaada ka ilaali in ay kaa arkaan waxaan xaaskaaga iyo waxay gacantaada milkiday oo addoontaada ah ahayn. qaal qultu yaa rasuula allah, idaa kaana alqawmu bacduhum fii bacd. wuxuu yidhi, waxaan idhi rasuulkii ilaahayow, bal ka waran haddii ay dadku isku dhex jiraan oo ay isdhex joogaan oo ay inagu adag tahay in aan cawrada wada qarinno. qaal in istatacta anlaa yarayannaha axad falaa yarayannaha. wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wassalaam, inta aad awooddo in aysan cidina kaa arkin, qofna yuusan kaa arkin. qaal qultu yaa rasuula allah, idaa kaana axadunaa khaaliya. wuxuu yidhi, waxaan idhi rasuulkii ilaahayow, haddii midkeena uu keligiisa yahay oo qofna uusan la jooginna bal ka waran? qaal allaahu axaqu an yustaxyaa minhu min annaas. wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wassalaam, Alle ayaa dadka ooga xaqnimo badan in laga xishoodo. Micnaha haddii qof bani aadam ah uusan ku arkaynin, Alle ayaa ku arkaya subxaanahu wa tacaala oo aadan marnaba ka qarsoomaynin. Isaga ayaana ugu xaqnimo badan ama ugu mudan in laga xishoodo subxaanahu wa tacaala. sidoo kale waxaa xadiis daciif ah ku soo aroortay can ibni cumarin radiallahu canhuma anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal, iyaakum waatacari. ka digtoonaada in aad isqaawisaan oo aad qaawisaan cawradiina. fa inna macakum man laa yufaariqukum ilaa cinda alghaa'it wa xiina yufdi alrajulu ilaa ahlih. maxaa yeelay waxaa idinla jooga kuwo aanan marnaba idinka tagin oo mar walba idinla jooga, markii laga reebo markii aad xaajo gudanaysaan iyo markii uu ninku la jimaacayo xaaskiisa. kuwa nala jooga ee aanan naga tagin waxaa loola jeedaa malaa'igta. wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam, fastaxyuuhum wa akrimuuhum.
ka xishooda oo karaameeya idinkoo daboolanaya cawradiina. xadiiskanuna waa mid daciif ah, balse qofka muslimka ah wax dhib ah kuma ahan in uu iska dhigo dharkiisa oo uu qaawani seexdo, waa haddii uu ku jiro qolkiisa khaaska ah oo uusan ka baqaynin in uu cawradiisa ka arko qof kale oo aysan u bannaanayn in uu arko cawradiisa. qofka cawradiisana uma bannaana in uu ka arko qof kale markii laga reebo xaaskiisa ama zawjkeeda. wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala carruurta iyo adeegayaasha ama shaqaalaha amray in la baro oo ay soo gelidda u soo fasax qaataan xilliyada hurdada iyo istareexa, xilliyadaasoo loo malaynayo inuu qofku dharka dhiganayo. wuxuu yidhi Alle subxaanahu wa tacaala: waxiina tadacuuna thiyaabakum min aldahiira. balse ugu dambayntii waxay dhaheen culimmadu ma habboona in cawrada la faydo ilaa wakhtiga ay daruuro jirto mooye, sida xilliyada xaajo gudashada iyo jimaaca iyo kuwo kale. qofka muslimka ahna waxaa la gudboon inuu mar walba asturo cawradiisa, maxaa yeelay qofku inuu qaawani seexdo waxaa ka dhalan karta fitnatun min ashayaatiin. waxaa dhici karta in shaytaan lagu sallido ama in jirkiisa uu caashaqo nooca loo yaqaano aljinnul caashiq oo jinniyaasha ka mid ah. nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam: ina ashaytaana yajrii min ibni aadam majra dam. shaytaanku wuxuu bani aadamka jirkooda uga socdaa meelaha uu dhiiggu maro. haddaba waxaa wanaagsan in aynaan seexanin innagoo qaawan si aan uga fogaanno qariinka dhibaatadiisa. waana in aan ka digtoonaannaa waswaaskiisa iyo dhagartiisa, maxaa yeelay waa mid mar walba inala jooga oo aanan marnaba inaga tegin. waana ibtilo iyo imtixaan xagga Alle subxaanahu wa tacaala ka ahaaday. waana lagama maarmaan in lala jihaado oo si adag looga digtoonaado dhagartiisa. Alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala: yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum. mar walba digtoonaada haddii aad tihiin mu'miniinta. waxaa waajib nagu ah in aan ka digtoonaanno shaytaanka fitnadiisa iyo in aan Alle uga magangalno subxaanahu wa tacaala. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasheena sharafta leh, fadlan ha iloobina muuqaalka inaad like saartaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina. haddii aad inagu cusub tahayna fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiira geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga.